Silvia Romano ama Aisha Romano haweeneydii Al-Shabaab ka soo qafaalatay Kenya muddada sanadka ahna lagu haystay Soomaaliya ayaa ka qayb qaadanaysa mashruuc uu ururka Midowga Yurub kula dagaalamayo Islaam nacaybka. Walaal like saar followna soo dheh page-ka Cabdikariim Cali Aadan like garee muuqaalka aragtidaadana ka dhiibo oo share garee si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Jariirada afka dheer ee Republika oo u muuqata mid arrinka Aisha Romano samaysay ka xun ayaa tallaabadan ku macnaysay in Silvia ay noqotay danjiraha qaaradda Yurub ee la dagaalanka Islaam nacaybka. Haweeneydan ayaa si aan qasab ahayn ku islaamtay muddadii ay la haystaha ahayd, waxa ayna magaceeda u beddelatay Aisha Romano. Mashruuca ay haweeneydan ka qayb qaadanayso ayaa lagu magacaabaa Yes, waxaana laga fulinayaa magaalada ay ka degan tahay dalka Talyaaniga ee Milano. Ururo kale oo lagu kala magacaabo Fondazione Albero della Vita Russia iyo Progetto Aisha ayaa ololahan kaalin muuqata ka ciyaari doona. Waajibaadkooda ugu weyn ayaa waxa uu yahay in ay soo aruuriyaan macluumaad lagu taageerayo dadka la kulmay dhibaatooyinka faquuqa ku salaysan. War qoraal ah oo lagu daabacay mid ka mid ah ciwaanada Facebook ee ururadaasi ayaa lagu sheegay in ay ku faraxsan yihiin la shaqaynta Aisha Romano. Annagoo ah 8 ruux, marka lagu daray Aisha, waxaan ururin doonaa kiisaska la soo wariyo ee Islaam nacaybka iyo tabashooyinka. Waxaan taageeri doonaa dhibanayaasha la kulmay tacaddigaasi, annagoo sii doona garab istaag sharci iyo mid maskaxeed ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka. Silvia Romano ama Aisha Romano oo 27 sano jir ah ayaa dhankeeda la kulantay cunsuriyad badan kadib markii ay dalkeeda dib ugu laabatay. Mas'uuliyiin ayaa ka mid ahaa dadka weerarka dhanka baraha bulshada ah ku qaaday Aisha Romano oo magaceedii hore uu ahaa Silvia Romano intii aysan Islaamka ahayn, walow ay ka cudur daarteen.